dhammaan dadka xafladan ka soo qayb galay odayaal iyo haween iyo jaalayaashayda wasiirada ay la socda dhammaan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku mahadsantiin inay igu sharafteen inaan fadhiga ku hadlo. waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa dhoofa iyo raagto hablihii xafladan ka soo shaqeeyay burhaan iyo raagto hablihii xafladan soo diyaariyey. waxa kale kana shaqeynaya dhoofo oo iyaduna halkan waxoogaa dhiirigelin ay samaysay. intaa markaan ka imaado aniga waxaa la ii xil saaray kanima fiicnaba kama wanaagsan. intaa markaan ka imaado waxaan waxoogaa idinka tataabanayaa dalku halku maanta marayo. waa la socotaan in guulo fara badan la gaadhay gudaha iyo dabaddaba. qof waliba wuxuu jecel yahay buu yidhaahdaa. dad baa yidhaahda arrimaha dibadda waxba kama socdaan, qaar baa yidhaahda arrimaha gudaha waxba kama socdaan, wasaaradaha kale dhaliila. laakiin runtii muddada dowladdu jirtay oo aad iyo aad u yar, khaasatan wasiirada 6 bilood bay jireen. 6daa bilood guulo aad u fara badan baa la gaadhay gudaha iyo dabadba. gudaha haddaan ka bilaabo waa la socotaan nimankii argagixisada ahayd ee dalka ku soo duulay in muqdisho markii dowladdu timi ay in yar ay xor ka ahayd. maantana ilaa Kismaayo laga xoreeyey, laakiin ay goobo weli sii joogaan. gudaha haddii aan sii wado waa la socotaan in isbaarooyinkii magaalada laga qaaday oo dadku habeenkii nabadgelyo iyo maalintiiba ku socdaan. way iska dhacdaa in meelo badan ay qarqarxaan marmar, taasna adduunkay kala mid tahay. oo magaalooyin badan oo caalamkaasa way ka nabadgelyo badan tahay xamar maanta. diyaasbaradii baa soo noqotay, dhismayaashii baa socda, sharikado fara badan oo ajnabiga yimi oo danaynaya dalka inay dib u dhiska wax ka qayb qaataan. dowladduna itaal kastoo leedahay waxyaalo badan ayaa socda oo wasaaradahu waata sida waqti la soo koobay kulka hore aad loo koobay. wasaaradahaasi oo imika 10 oo imika ay nagala joogaan wasiiradan, مثلا nadiif oo kale wasaaradeedu waa ilaa 5 wasaaradood oo isdul saaran. wasaaradda caafimaadka iyo tacliinta iyo dhalinyarada iyo shaqaalaha iyo haweenka, intaasina waa mid kale oo isa saaran. wasaaradahu way badan yihiin kuwa isa saarsaarani. waxaad moodaa haddana qof waliba hawshiisa dhinaciisa inuu ka wado. wasiir maxamuud iyo waynoo warrameen iyo maxamed rashiid iyo nadiifo. heerka ay maanta maraynaa iyo muddada ay jirtay dowladdu run ahaantii isma laha, aad bay u kala horeysaa. waxaa kaloo arrimaha dibadda haddaan ku soo noqdo sidaa la socotaan waxyaalo fara badan baa qabsoomay. diblomaasiyiinta caalamku maanta way kusoo qulqulayaan xamar, aad bay u yimaadaan. safaaradaha yimi 30 kama yara iminka, inta ama waraaqihii dhiibtay ama soo guurtayba ama safaaradahoodii dhisaysa. waa la socotaan William Hague ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska, wasiirka arrimaha dibadda Masaarida, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Turkiga, wasiirka Finland, wasiirro fara badan oo arrimo dibadeed baa yimi. in badanna way soo socotaa. imaaraadka, qatar, wufuud fara badan baa timaada had iyo jeer iyagoo danaynaya si ay wax inoola qaban lahaayeen. cunaqabatayntii waa la socotaan oo waa la qaaday sidii halkan looga sheegay. ictiraafkii Mareykanka ee inoo furay albaabo badan oo baanka adduunka iyo baananka ka African Development Banka iyo IMF-ta. shirar qayr caadi ah oo waaweyn oo fara badan oo isdaba jooga oo aynaan ka qayb gali jirin oo ay ka mid yihiin
kii weynaaye Soomaaliya iyo Ingiriisku ay wada maamulayeen ee gudoominayeen ee London ka dhacay oo soo jiitay ilaa 60 dawladood oo dhow iyo ilaa intaas oo shirkadooda waaweyn iyo hay'adaha caalamka ee waaweyn oo 20 kor dhaafay oo ballanqaadyo fara badan laga ballanqaaday Soomaaliya dibdhiska laga qaato waxaad moodaa arrimaha dibadda in tallaabooyin fara badan heshiisyo fara badan oo caalami ah soo galay IGAD oo ahayd sida ula socotaan urur goboleed 7 dal ee aynu ka mid ka nahay oo u fara banaanayd oo u gacan banaanayd iyadu dalka inay maamusho waa kala soo wareegnay xilkii innaga maanta maamulana heshiisyada aan galay ee faraha badan ee ama khaliijka ha noqoto ama ha noqoto Yurub ama ha noqoto Afrika oo ay ugu dambeeyay kii maanta aan la saxeexay dawladda Kenya aad bay fara badan yihiin waxaad moodaa arrimaha dibadda muddada gaaban iyada ku dheeday inaan horumar badan aan ka sameynay insha Allah kuraasidii badnay cidlada ahaan jirtay 20 sanadood ee dawlad la'aanta ah ee caalamka maanta kursiga Soomaaliyeed uu buuxa waa lagu fadhiistaa mar walba waana laga hadlaa Soomaaliya maanta xaaladdeeda halkay marayso dawladdu dhaqaale la'aan ayay run ahaantii wax badan la qaban kari weyday sababtoo ah iyadoo ciidankii wali aanu dhisnayn oo la dhisayo ciidankii ayaa isla markaa dagaalmo ku socda adduunyadu markay dawladuhu ciidankooda dhisaya waa maray nabadiin inagoo dagaal socdo ayaa haddana ciidankina lagu dadaalayaa in la dhiso waa la socotaan oo 7 dawladood baa dalkeena dhex jooga oo nabadda nagala shaqeynaya oo Kenya ka mid tahay Uganda ka mid ah waxaa ka mid ah Nigeria waxaa ka mid ah Sierra Leone waxaa ka mid ah Djibouti waxaa ka mid ah Ethiopia Burundi baa iyana ka mid ah aad baa inaynu ugu mahadnaqno weeye dhiigoodii bay u daadiyeen dhalinyaradoodii curdanka ahaa baa dalkeennii ku dhex dhimanaysa taasina waxa weeye walaalnimo iyo darisnimo iyo dana guud aynu wadaagno oo afrikaannimo ah in maaragtay ay darteeda inoogu soo gurmadeen hase yeeshee waxa weeye inaynu ogaano goormaynu waa in la helo dariiqo iyaguna ay ku baxaan inaguna aynu dalkeenni ku hanano oo nabadgelyadeenni aynu ku sugno taana dadka dibadda jooga wax badan ka qaban kara dadka Soomaaliyeed ee dibadda daadsan ee qaxootiga ah ee faraha badan waxaa garab socda dadka Soomaaliyeed ee dawladaha kala dhisaya hadday halkan tahay hadday South Africa tahay hadday South Sudan tahay hadday Afrika oo dhan tahay hadday Dubai tahay xoolo Soomaaliyeed oo fara badan baa lagu maalgeliyaa lagu dhisaa waqtigii baa la gaaray dhulkeenni nabad soo noqonayay ee loo baahnaa in dhulkeenna dib loo dhiso oo xoolaha la gelinayo dabadaha dalkeenni baa maanta loo soo shaqo tagaya waa xaqiiq dad badan oo ajnabi ah dhex jooga oo shaqo doona dadkii dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay baa jooga oo shaqo la saasay tahay gobolkan laftiisa xitaa dalkan Kenya guddiisa dad badan oo Kenyan ay yimaado oo shaqo ka hela oo ka soo shaqo doonta Banika ama goyse walante waxaynu leenahay xoolaha caalamka waa record yaalla World Bank xoolaha dalka ugu xoolo badan marka loo tiriyo dalka ku nool waxaynu leenahay macaadin nooc kastaba ha noqoto coal ha noqoto uranium ha noqoto titanium ha noqoto waxaynu leenahay xeebta Afrika ugu dheer ugu kalluunka badan maadaama ay ugu dheer tahay halkaynu adduunka fikranaano la idin sheegi maayo istiraatiijiyadeeda dadka tiradiisuna haddana ma badna 10 milyan baa lagu qiyaasaa marka ilaahay qaniimadaas uu ina siiyey dhulkaas uu ina dejiyey waynu isku filannahay waxaynu u baahanay muddo yaroo gaaban oo loo samro waxa socda iyo dhibaatooyinka dal walba markuu dagaal ka soo baxo iyo burbur
dhibaatooyin badan uu kala iyo khilaaf badan uu ka dhex dhashaa hase yeeshee marka dadku helaan dhaqaale la helo waa la kala degaa baahidaa meesha keenaysa marka dalkeenni in loo noqdo wax laga qabto waa waajib ina wada saaran annagu kul intayada dowladda ku jirta inta badan dowladdaanu ka nimi inta hadhay haddii ilaahay la yidhaahdo shaqooyinka badan ee soo socda ee aada loo sugayo shirkaa la dhan kadib wuxuu u baahanayaa dadkeedii inay yimaadaan oo ka shaqeeyaan hadday noqoto injineero hadday dhakhaatiir noqoto hadday noqoto dadkii planninka qorsheynta magaalooyinka macallimiin hadday noqoto dalkii maanta inoo baahan yahay haddaynaan imanin dad kalaa imanaya oo ka shaqaysanaya taasina waa mid waa la socotaan jamciyadda qurumaha un-ta in lagu qasbay heshiisyadii aan keennay awgeed inay gudaha lasoo galo nairobi laga guuro xamar ninkii bedelay ninkii madaxda ka ahaa umbas ee mahiiga la odhan jiray ninkii bedelay berri buu xamar soo gelayaa oo soo degayaa si rasmi ah isagoo intaas waxay adood baa imanaysa waxaan anigu gabagabadii kusoo dhow keliya waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliya 10 kun oo sano ka hor bay wax ahayd oo dowladaha caalamka xukumo ka mid ahayd dadka yaryar baa baari kara jaamacadaha iyo ka baadhaan internetyada waa helaysaan taariikhihii hore ee soomaaliyeed geeskana dunida in badan laga xukumi jiray taariikho badan oo qarsoon baa jira dagaalo badan oo caalamku isugu keyn tagay baa jira sidaynu awoodaynu lahayn oo ugu horeeya dagaaladii ajuuraanka lala galay ee yurubiyanka oo dhan isugu tageen oo uu ka mid yahay dagaalkii axmed gurey uu ka mid yahay kii markii dambe sayidka markas dadka soomaaliyeed dad aada looga baqdo weeye run ahaantii waa ummad hadday iskaashato wax badan qabsan karta hana leh marka waxaan rajaynayaa ilaahay inuu soomaalihiis afgaradsiiyo oo ay isku soo noqdaan oo ay wax wada qabsadaan waxaan kusoo dhammaystirayaa qodob isagu runtii aniga kule calaam xanuun igu ah oo ah dadka qaxootiga dibadda daadsan ee soomaaliyeed ay ka mid yihiin qaxootiga dhex joogaan soo dejiyay dhulkoodii soo dejiyay qaxootigaas waa la socotaa South Africa waxaa ka dhacaya haddii aad aragteen ilaa shalay ilaa wiigii hore dadka la gubayo dadka la leynayo dadka dhagaxa lagu dilayo Africa geeska Africa nahay geeska Africa nahay adduunku aqoonsisiyo awoodiyay taloho aad baan leenahay isticmaalna diiday ummadana joogta
waa la socotaan sidaa loo yidhi dhibaatooyin badan baa haysta waana waxbaa laga qabtay ilaa shalay tallaabooyin badan baan ka qaadnay cajaladihii xanuunka lahay laga arkayay South Africa madaxweynaha South Africa wuu la hadlay Japan bay wada joogaan anigu wasaaradda arrimaha dibadda la hadlay weli hadallana way noo socdaan safiirka waanu la hadalay wafdina waa loo diri doonaa insha allahu ka qabta wax oo soo baara sababaha dhibaatada keentay iyo intii doonaysa inay soo noqotoba in wax lagala qabto waxaa kale oo iyaguna dhibaato badan qaba dadka Yemen jooga oo dhibaato aad u xanuun badan oo aad iyo aad u xun iyaguna qaba oo aad u kala daadsan dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa dabadaha ku quban oo aan u baahnayn dhibaatada haysata jeelasha caalamka oo dhan Soomaali baa ka buuxda aan ahayn yaryarka qalqaaliya ee jeelasha lagu guro ee dadkii ama burcadbadeed magaranaysaa loo maleeyaa ama ahaaba marka hawl fara badan ayaa taala oo aan kulley qorshaha ku jirta in wax laga qabto laakiin gacan baa loo baahan yahay gacanta loo baahan yahay waxa weeye ganacsatadu inay dalkii maalgelin ku samaysato cashuurtana bixiso waayo dowladda cashuur la'aan waxa ma qaban karto dalkani waa dad saamisha dal aad u qani ah qofkii maalgashada maanta ee taga ee wax ka qabsadaana wax weyn buu ka qabsan karaa dadkiisana u tari karaa dowladdiisana u tari karaa waxaan u malaynayaa waqtiga inuu soo gaaban yahay hadalka intaasaan kusoo koobaya waxaan idinka codsanayaa dalkii taga soo arka wax ka qabta ka taliya waa laydin baahan yahay waana mahadsantihiin dhammaantiin Abang